iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeysay ay ku sii qulqulayeen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Jubbaland wufuud kala duwan oo isugu jira xubno ka socda dowlad goboleedyada dalka iyo xubno kale oo matalayay beesha caalamka ayaa waxaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Jubbaland ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating xogayaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka ayaa tilmaamay in kulanka uu ka qayb gali doono ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhanka kale xogayaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka ayaa tilmaamay in maanta oo lagu madlanaa inuu ka furmo shirka ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada dalka magaalada Kismaayo dib u dhac uu ku yimi isla markaana uu furmi doono 48 saac ee fooda inagu soo haya qorshuhu markii hore wuxuu ahaa shirka CIC ama golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu inuu bilowdo maanta qorshuhu wuxuu ahaa in wufuuddu dhammaantood ay shalay yimaadaan laakiin arrimo ama cilado maxaan ku raahdaa jiray oo madaxda qaarkood ay u suuroobi weyday inay shalay yimaadaan ayaa dib waxay ugu dhaceen maanta inay yimaadaan marka waxaanu isla garanay in maanta madaxdu ay wada tashi samayso ka bacdina shirkiisi official ah barito hadii alla nafta noo daayo 10ka inuu si official u furmo marka meediyaha iyo maxaan ku rahaa saaxiibada waxaan u sheegayaa wax walba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna uu bari furmi doono wufuudiina hadda ay soo wada dhameystirantay madaxweynayaashii dhammaantood ay hadda ku sugan yihiin maxaan ku raahdaa Kismaayo ilaa iyo galabta ilaa iyo caawa ay wada tashi ka yeelan doonaan arinta shirka barito ka bacdina shirku 10ka hadii alla yiraahdo inoo furmi doono waa kulankii labaad ee ay ku yeeshaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka magaalada Kismaayo.